wax kastoo noolo ah geeridu way ku duldhacaysaa. maanta waxaan ka sheekaynaynaa walaalayaal malaa'igtu sida u dhimanayaan. laga yaaba arrintan inay hadda kuugu horrayso maqalkeeda, laakiin ogow wax kastoo nafle waa dhiman doonaan. malaa'igtu sida u dhimataa waad ilmayn doontaa markaad dhegaysatay kiliibka kan. keliya bilow ilaa dhammaad dhegayso, siina faafi walaalaha la wadaag. lacala laga yaaba inay xasuus noo noqoto si aan ilaahay taacadiisa ugu toosnaanno. waqti iyo zaman fitanka iyo dhibaatada ee bateen iyo khiyaanadu. malaa'igtu waxay ka mid yihiin ilaahay wuxuu abuuray tabaaraka wa tacaala. ilaahay baa ka abuuray nuur, insaankana waxaa laga abuuray dhoobo, jinkana naar baa laga abuuray. hase yeeshee malaa'igtu ma ahan jinka iyo insaankoo kale. jinka iyo insaanka ilaahay way ateecaan, dhinaca kalena way caasiyaan. hase yeeshee malaa'igtu ilaahay bay ateecaan oo keliya, ma caasiyaan. sida ilaahay uu yidhi, laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. rabbi wuxuu ku dul qoray mawdka iyo geerida dhammaan waxa uu abuuray. xitaa malaa'igta way dhimanayaan, waayo ilaahay baa yidhi kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbik. wax kastoo adduunka jooga waa dhammaanayaan, sidaasaa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala. laakiin ilaahay waa mid baaqi ahaanaya. su-aasha keliya waxa weeye walaalayaal, siday malaa'igtu u dhimanaysaa marka qiyaamaha la gaaro oo saacaddu dhacdo? ilaahay wuxuu amrayaa israafiil malagga la yidhaahdo inuu afuufo buunkii qaybta koowaad. kadib dhulka ayaa simaya, dhulgariir ayaa dhacaya dhawaaqaas daraaddiis iyo xoogga uu leeyahay. kadib waxaa dhimanaya makhluuqa dhulka ku dul nool, dhammaantood waa dhimanayaan. xitaa malaa'igta samaawaad dhammaan waa dhimanayaan. kadib waxaa soo haraya jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo casraa'iil. afartaa malag ayaa soo haraya. malakulmawdki ayaa waxaa lagu leeyahay, yaa soo haray, yaa baaqi ah oo naftu ku sii jirtaa, isagoo ilaahay haddana ka sii og. kadib uu sheegayaa malaa'igtaas baaqiga ah. markaasu wuxuu leeyahay, iyo addoonkaada daciifka ah ee malakulmawt. waa malakulmawtkii naftas ka soo qabtay wax kastoo noola ahaa, ayaa ilaahay hortiisa sidaasi dhahaya oo dhahaya, addoonkaadii daciifka ayaana. xaggay joogaan maanta kuwa iskifrisiinaya ee boqorrada iyo dawladnimada adduunyada sheeganaya? malakulmawd wuxuu aadayaa jibriil buu u tegayaa, weliba jibriil oo sujuudsan oo rukuucsan. markaasuu wuxuu leeyahay malakulmawd, ilaahay wuxuu isoo amray inaan nafta kaa siibo. jibriil ayaa ooyaya, rabbigiis ayuu baryayaa, wuxuu ka baryayaa sakaraatulmawdka inuu u fududeeyo. kadib hal mar ayuu qabanayaa, jibriil ayaa dhulka ku dhacaya isagoo naftu ka baxday calayhi salaam. kadib ilaahay baa su'aal weydiinaya malakulmawd oo wuxuu leeyahay, yaa haray? isagoo ilaahay ka sii og. markaasuu wuxuu leeyahay, waxaa haray mikaa'iil, israafiil iyo addoonkaada daciifka ah, oo isku jeedo isaga oo malakulmawda. kadib waxaa la leeyahay, ora ka soo qabo nafta mikaa'iil. wuu soo baxayaa malakulmawd, wuxuu u imaanayaa mikaa'iilna waa midkii qaabilsanaa roobka oo ilaahay u xil saaray tabaaraka wa tacaala. markaasuu malakulmawd wuxuu leeyahay, mikaa'iil waa laykaa soo diray inaan nafta kaa siibo. ilaahay baa isoo amray nafta inaan kaa bixiyo. mikaa'iil waa ooyayaa, rabbi buu baryayaa inuu sakaraatulmawdka u fududeeyo. hal mar buu qabanayaa malakulmawd, nafta sidaas uga baxaysaa, wuu dhacayaa marka isagoo mayda oo nafi aysan ku jirin mikaa'iil. kadib su'aal buu ilaahay weydiinayaa. ilaahay oo ka sii og oo uga sii aqoon badan waxaa haray ayuu ilaahay su'aal weydiinayaa. wuxuu leeyahay, malakulmawd oo yaa haray? wuxuu leeyahay, israafiil iyo anigoo ah malakulmawd addoonkaadii daciifka ahaa ayaa haray. kadib uu ilaahay wuxuu leeyahay, orod israafiil aad oo nafta ka soo saar. wuu soo baxayaa malakulmawd. israafiil buu u imaanayaa, markaasuu wuxuu ku leeyahay, ilaahay baa ikaa soo diray si aan nafta kaaga siibo. israafiil waa ooyayaa, ilaahay buu baryayaa inuu sakaraatulmawdka u fududeeyo. kadib hal mar buu qabanayaa, naftaa sidaa uga baxaysaa, dhinac buu u dhacayaa. kadib ilaahay su'aal buu weydiinayaa isagoo ka sii og weliba, malakulmawdoo yaa haray? markaasuu malakulmawd wuxuu leeyahay, anigoo ah addoonkaadii daciifka ah oo malakulmawda ayaa haray, keligay baa haray buu leeyahay. ilaahay wuxuu leeyahay, sharaftayda iyo cisadayda iyo weynankaygaan ku dhaartaye waa ku dhadhansiinayaa geerida sidaad addoommadayda u dhadhansiisay. ee soco oo waxaad tagtaa meel u dhaxaysa jannada iyo naarta oo halkaasi ku dhimo. wuu soo baxayaa malakulmawd, wuxuu imaanayaa jannada iyo naarta meel u dhaxaysa. markaasuu qaylinayaa. hadday jiri lahaayeen makhluuq nool qayladaasi way la nixi lahaayeen, naftaana ka haadi lahayd qayladaasi intay la eg tahay iyo weynankay la eg tahay daraaddeed. malakulmawd halkaas ayuu ku dhimanayaa. ilaahay keligiis tabaaraka wa tacaala ayaa soo haray. ilaahay ma dhinto, waayo meeluu ka soo bilaamay ma jirto. lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad.
kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyadii ayuu soo fiirinayaa ee dhammaatay markaas wuxuu ku leeyahay adduunyoy away gobiyaashaadii away geedahaadii away wixii camiraadaadii ahaa away boqorradii iyo carruurtii boqorrada iyo intii kugu dhex noolayd kuwii xoogga badnaa ee kibirka badnaa away iyo carruurtay dhaleen away buu ilaahay leeyahay kuwa irsaaqadayda cunay oo nimcadayda beddelay oo aniga kayrkay caabuday away buu leeyahay kadib ilaahay wuxuu leeyahay liman ilmulku lyawm liman ilmulku lyawm liman ilmulku lyawm awooddayaa iska leh maanta mulkigayaa iska leh cidna uma jawaabaysa sababtoo ah qof nool ma jiro malaa'igtii xataa malakulmawd baa u dambeeyey oo waa dhintay cidi uma jawaabayso waayo akhlaaqidii dhammaantood waa dhinteen asagaa ilaahay isu jawaabaya markaasuu wuxuu leeyahay almulku lilaahi alwaaxidi alqahaar mulkiga ilaahaygai awoodda lahaa ee keligiis ahaa ayaa iska leh isagaa ilaahay isu jawaabaya waayo cid u jawaabta ma jirto markaas halkaas ayaa khalaa'iqda naftooda ku dhammaanaysaa iyo dhimashadu malakulmawd ayaa u dambeeyo waa dhintay ilaahay ha naga dhigo kuwa tawfiiqda ilaahay waafajiyo khaatumadooda khayr loogu khatimo una dembi dhaafo sakaraatulmawdkana ilaahay u fududeeyo wixii ka dambeeya kuwa ilaahay ku xidhan oo ilaahay raalli ka yahay dhammaanteen allah ha naga dhigo wamahadsantihiin jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu